Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki başkonsolosluğunda öldürüldüğü haddii aan ka hadlo jariimadii ka dhacday qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul midaasi oo dib loogu geystay saxafi Jamal Khashoggi. Öncelikle merhum Cemal Kaşıkçı'ya Allah'tan rahmet. ugu horeyntii waxaan alle ugu baryayaa raxmad iyo dambi dhaaf. waxaan sidaasi oo kale u tacsiyeynayaa gabadhii u qadiibneyd iyo reerkiisa kale ee Sacuudiga jooga iyo dhammaan suxufiyiinta uu ka baxay saaxiibkood. Hafıza tazelemesi yapalım diye düşünüyorum. waxaan doonayaa inaan warbixin idinka siiyo dhacdadan. Jamal Khashoggi 28 Sebtembar saacadu markii ay ahayd 11 iyo 15 mirir wuxuu booqday qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul. booqashadaasi kadib waxaa la qorsheeyay qaabkii loo qaarijin lahaa Jamal. Anlaşılıyor. Yani bir planlama, bir yol haritası burada çalışmaya başlıyor. qaar ka mid ah shaqaalaha qunsuliyadda ayaa si dhaqsi ah ugu safray dalka Sacuudiga kuwaasi oo qayb ka ahaa dambigii dhacay. maalintii koowaad ee bisha Oktoobar saacadu markii ay ku beegnayd 9kii aroornimo waa maalin ka hore saacadu markii ay ahayd 4:30 mirir koox Sacuudiyiin ah ayaa yimid waxay kireysteen hotel kadibna qunsuliyadda ayay tageen. Bu arada başkonsolosluktan bir başka ekip de Belgrad ormanı sidaasi oo kale koox kale ayaa iyagana soo gaaray Turkiga waxay durbadiiba tageen kaynta Belgrad ayagoo u dhaqaaqay sida muuqata baaritaano ama qorsho kale. İstanbul'a gelip otele yerleşiyor. Aralarında generallerin de bulunduğu 9 kişilik 3. ekip ise özel bir uçakla havalimanına inip bir başka otele hareket ediyor. Toplam 15 kişiden oluşan bu ekip si waliba ha noqotee 15 qofood oo Sacuudiyaan ah ayaa soo gaaray Turkiga waxay isugu tageen qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul ku leedahay. ugu horeyntii kooxdii waxay u dhaqaaqeen inay bixiyaan hard diskiga kaamirooyinka gudaha wax ku duuba kadibna waxaa lala xiriiray Jamal Khashoggi si uu u yimaado waqtiga saxda ah ee lala balamay. randevusu teyit ediliyor. Aynı gün erken saatlerde Londra'dan İstanbul'a dönen Kaşıkçı intaasi kadib Khashoggi waxa uu ka yimid London isaga uu soo gaaray Istanbul wuxuuna qunsuliyadda galay saacadu kolkii ay ahayd 1:50 daqiiqo. dabcan gabadhii u qadiibneydna waa ay la socotay oo banaanka ku hartay. bir daha kendisinden haber alınamıyor. Akşam saat 17:50'de ülkemiz resmi makamlarına nişanlısı tarafından saacad kadibna war iyo wacaalna lagama helin Khashoggi. galabtii kolkii ay ahayd 5:50 mirir gabadhii Khashoggi ayaa la soo xiriirtay ciidamada booliska ee Turkiga ayadoo ka walwalsanayd masiirka Jamal Khashoggi iyo in uu galay qunsuliyadda isla markaana uusan ka soo bixin. waxayna sheegtay inay aad ugu baqayso in Jamal ay ku dhaceen wax xun. intaasi kadib ciidamada amniga waxay u dhaqaaqeen baaritaano kadibna waxaa la baaray kaamirooyinka wax duuba. intaasi kadib waxaa caddaatay in Khashoggi uu galay qunsuliyadda laakiin uusan ka soo bixin qunsuliyadda. Başkonsolosluk binası ve görevlileri hakkında ilk etapta intaasi kadib ciidamada amniga waxay u dhaqaaqeen baaritaano kadibna waxaa la baaray kaamirooyinka wax duuba. intaasi kadib waxaa caddaatay in qunsuliyadda uu galay Jamal laakiin uusan ka bixin qunsuliyadda. savcılar eliyle soruşturma açıyor. Araştırma ve soruşturma derinleştikçe tabii çok ilginç bilgilere sida lagu heshiiyey Vienna ciidamada amniga waxaa ka reeban in ay baaritaan degdeg ah ku sameyn karaan shaqaalaha iyo qunsuliyadaba. intaasi kadib madaxii baaritaanada waxa uu baahday warbixino dheeraad ah iyo baaritaano qoto dheer.
Bu kişilerden 6'sının 2 Ekim akşamı saat 18:20'de, 7'sinin de saat 22:50'de intaasi kadib maalin ka hor waxaa waddanka soo gaaray 15 qofood oo isugu jira qaybaha kala duwan sida muqaabaraadka iyo qaybaha dambi baarista iyo shakhsiyaad kale oo Turkiga ku yimid diyaarado caadi ah iyo kuwa gaarba ah. dilkii Jamaal loo geystay kadib waxaa la sameeyay oo la matalay shakhsi u eg Jamaal oo loo labisay dharkii Jamaal si loogu ekeysiyo Jamaal Khashoggi inuu ka baxay qunsuliyadda. Yine aynı sebeple izin veriliyor. Suudi Arabistan yönetimi ise 4 Ekim'de yaptığı bir açıklamayla afartii bishii Oktoobar qunsuliyadda Sacuudiga waxay diideen diidmo adag ah in halkaasi uu dambi ka dhacay oo Jamaal Khashoggi lagu qaarijiyay. 6 Ekim'de burası da önemli. Reuters muhabirini içeriye davet etti. Waxay u yeerteen warbaahinta Reuters una ogolaadeen gudaha qunsuliyadda una fasaxeen inuu duubo meelo kooban ayagoo ka taxadaraya hadallada. Waxay ka dhigeen in qunsuliyadda wax dambi ahba uusan ka dhicin. Bu arada gerek emniyet ve istihbarat birimlerimiz, gerek savcılığımız intaasi kadib ciidamada amniga ee Turkiga iyo xeer ilaaliyaha guud waxay u dhaqaaqeen baarid aad u qoto dheer oo la xiriirta arrintaasi. Waxay heleen macluumaad hor leh oo intaasi ka badan. Sürekli görüştü, bilgi paylaşımında bulundu. Suudi Arabistan'dan ülkemize 11 Ekim'de intaasi kadib waxaa dalka yimid guddi ka socda Sacuudiga oo u yimid dalka baaritaanada inay ka qayb qaataan. intaasi kadib waxay dhaheen Sacuudiga waxaan idiin fasaxaynaa inaad baarataan qunsuliyadda una saamaxaynaa in ay baariyaasha galaan. vereceklerini açıkladılar. Değerli arkadaşlar, önce tabii bazı şeyleri sormak. Haddaba waxaan doonayaa inaan jawaab ka bixiyo dhacdadan ee ka dhacday Istanbul. İstanbul'da cereyan ediyor ve sorumluluk makamındayız. Öyleyse sorumluluk waxaa muhiim ah inaan isdul taagno oo aan wax iska weydiino si mas'uuliyadda ku dheehan tahay. Su'aashuna waa wax iska dabiici ah. Kolkii ay bilaabatay in la isku dayo in la qariyo jariimadii dhacday, waxaan Sacuudiga u sheegay in si dhab ah loogu baahan yahay in shaaca laga qaado in waxaani ay dembi yihiin oo weliba dembi halis ah ay yihiin. Sidaasi darteedna waxaan sugnay natiijada baaritaanada ka soo bixi doono. zan altında bırakmamak için araştırma ve soruşturmaların sonucunu bekledik. Suudi Arabistan Kralı Hadimul Haremeyn Şerifeyn Selman bin Abdülhamid marka ay xaaladda halkaasi marayso 14kii bishii Oktoobar waxaan la xiriirinay qaadimka xarameynka ee Boqor Salmaan. Waxaan kala hadlay mowduuca iyo dhibkii dhacay. Waxaan u sheegay cadeymihii aan hayay qaarkood. Waxaan isaga u sheegay in ay daruuri tahay in la helo guddi labada dhinac ka socda oo hawshan baaritaanka ku sameeya. Waan ku wada heshiinay arrintaasi oo aan qadka teleefanka kaga wada hadalnay. noktasındaki kararımızı da ifade ederek bu ortak çalışma grubumuzda çalışmaya başladı dedik ve bu konuda mutabık kaldık. daawadayaal khudbaddii madaxweyne Erdogan aad ayay u dheerayd. Wuxuuna sheegay in meydka Jamaal Khashoggi dad u dhashay Turkiga ay qayb ka yihiin kuwii qariyay, kuwaasi oo la shaqeynayay qunsuliyadda Sacuudiga ee Turkiga. sidaasi oo kale wuxuu boqortooyada Sacuudiga ka dalbaday in raggii falkaas geystay lagu soo wareejiyo Turkiga si halkaasi loogu maxkamadeeyo, sababtoo ah dambiga halka uu ka dhacay waa Turkiga.